dii aad ka soo jeedo degmada Cadale gobolka Shabeellaha Dhexe deegaankani uma baahnid in lagu yiraahdo waa deegaan hebel maxaa yeelay adigii ayaaba ka soo jeeda laga yaabee inaad ku dhalatay laga yaabee inaad maaragtay aabaha ku dhashay amba abkooga mise abuulanka haddii aad tahay mar reer Cadale deegaankani waa deegaan caan ah waa deegaan open ah oo furan cirka aad u arki karto si nadiif ah oo fresh ah indhahaagu waxba aan ka hor imaahin sidaas oo kale halkaanina waa deegaan labaad deegaankan labaad asagana waa deegaan cajiib ah oo baadiye ah oo furan qurux badan doog ah neecaw leh aan nabaad guur ku dhicin haddaba deegaankanina waa taqaanaa haddii aad ka soo jeedo degmada Cadale haddaba labadan deegaan ayaa laga rabaa magaca loo yaqaano cajiib halkaani haddii aad imaado waxaad heli kartaa haba fresh ah qurux badan sidaas oo kaleeto waxaan ka marneen internetkii adigoo baadiyahan joogo oo indhahaaga aanan qabanaynin cirka iyo dhulka iyo geedo waxaan ahayn indhahaaga uusan qabanaynin ayaa haddana waxaad heli kartaa cuno fresh ah caano fresh ah internet high quality amba xawaare sare leh cajiib halkaani waa deegaan ay u dhammaystiran yihiin dhammaan asaasiyaadka nolosha hadda iyadoo sidaas tahay dadku kuma baraarugsana halkaani waxay u qabaan meel maaragtay aan adeega amba asaasiga nolosha aan ku dhammaystirnayn balse waa meel ay ku dhammaystiran yihiin dhammaan asaasiyaadka nolosha waa dad isku tashtay oo gees tegay isku filnaaday halkaani waa fiida sare ee deegaanka Ceel Xaashi waxaan saaranahay fiida sare ee ceelka Ceel Xaashi maasha Allah waa meel aad iyo aad u qurux badan internetka xamar yaalay internetka halkan yaal markaad gasho internetka xitaa aad iyo aad u kaga fiican yahay midka xamar yaalo maxaa yeelay fiida sare aad joogtaa internetka yani aagaan ka jira dhan adiga ayaa xawaarihiisa qaadanaya عادي ما ما شاء الله marka su'aasha ay waxay tahay halkaani iyo xamar keebaa fiican ayadoon jawaabta aan laba ahayn ka fiirsasho aan ahayn waxaan si buuxda aan u leenahay halkaani ayaa fiican maxaa yeelay halkaani dhowr siyaabood ay ku fiican tahay kow halkaani waxaa ka jira nolol isku tashi ah aanan maaragtay qofna aadan ku tiirsanayn haddii aad qaangaar tahay oo aad halkan ku nooshahay dibadna lagaama biilo dad kalena kuma tiirsanid ee Allah subxaanahu wa tacaala kaliya ayaad tala saaranaysaa waxaad cuni lahayd iyo waxaad cabi lahaydna dhulkaas aad u jeedid ayaad ka soo saaranaysaa heer Ceel Xaashi ayaa la yiraahdaa dadka aad u jeedaan ee halkan degan haddaba ceelkaani ayaga ayaa qotay ayagii ayaa maaragtay maanta ku nacfinaya kadibna waxay u jihaysteen dhankan iyo beeraha nolosha dhabta ah ayay wajaheen nolosha halkan ka jirto ma ahin gacan taagasho ee waa isku filnaasho saad aragtaan qof la arko wuxuu wataa oorkii amba dameerkii uu ku qaadan lahay biyaha oo gurigiis ku isticmaali lahay qof la arka wuxuu degan yahay xaafad uu kaligiisa oday ka yahay afarta dhinac hadaad fiiriso cidna kama jirto guryuhu iskuma dhadhaba kama jirto isriix dhul halkaani noloshu waa nolol dhab ah oo xaqiiq ah dadka halkan degan been iyo propaganda uguma imaanaysid balse waa dad isku filan runtana aan ka gamban canugii halkan ku kora 100% wuxuu ka fiican yahay canugii magaalada Muqdisho amba magaalooyinka kale ee Soomaaliya ku kora maxaa yeelay halkaani qofka ku kora wuxuu arkayaa nolosha runta ah oo aan ku dhisneen iyo camir iyo waxyaabo la mid ah amrinta keebaa maaragtay fiican
حمري أنت فرق بدنا ولا حاجة. هي يا في يا في عن ولا حاجة ولا حتى فرق عادي ولا شو كوي كده ما. والله هان يا في عن والله هان والله ما خاف عن أنت في عن. هي ما شاء الله ضرورة إلهي دونك هرو آدي آد معناها إن نعمة في عن أنت ما ضلك في عن كهلنا. هي dalka waxa ku arko waxa kamid ah cunada aad cunto isla markii jirkaaga waa uu qaadaa waa uu ka baxayaa waxa doonto cun waxa doonto cab caafimaad iyo waxaan ku arkaa halkaani neecaw iyo qurxoon iyo udgoon intaba dhulkan dhul maaragtay nolol ahaan aad iyo aad u fiican waaye ama maaragtay qof walba uu maaragtay halkaani yimaada yacni in xamar lagaaga dhigayha maahin haddaad xoog aad hayso halkaan aad imaado noloshaada wax ka maqan xaqiiqatan ma jiraan haddii aadan marnaba aad internet ciriiri aadan ka qabin waxa cun leedan aad ciriiri ka qabin tiknoolajiyadii aad haysato magaalada muqdisho aad waxba aan kaga baahneen maxaa ku diidayo inaad degmadii aad ka soo jeeday ee cadale deegaankeedii aad ku noolaato haddii aanan jirin culayse ku gaar ah halkaani waa deegaan weynaha ceelmuluq haddaba dadka ayaa waxay ku jiraan nolol cajiiba qurxoon dabiici ah xaqiiqatan ilmaha halkan ayaa u fiican halkii xamar ay bulaacad waxaan la ogeyn in rafaad ay ku dhex jiri lahayn iyo dhalo ay fiiri lahaayeen halkaani kama jiraan fasaad fil ardi yacni ilmaha meel ay ku fasahadaan ma jiraan halkaan iga dambayso waa shirkadda hormuud halkaani waxyaabaha maaragtay koronto ayaad ka helaysaa waxaad ka helaysaa internet caalami ah oo heer sare u fuurjina halkan waad ka helaysaa markaad halkaani wax ka maran ma jiro nolosha xamar aad ku taqinay ayaa si caadi ah halkan loo keenay marka halkaani waa waxay kaga fiican tahay waxay tahay keliya inaadan haysan markaad xamar joogtid habadan freshka oo neecawda loo qurxoon halka annaga maaragtay aan ku dhibanahay bulaacad iyo maaragtay nin waxaad arkaysaa guri abaartamento 6 biyaan 7 biyaan ku jiro hortiisna ay bulaacad iyo xaar iyo wax ura yaalaan laakiin halkan waxaas kama jiraan shirkadii waa ku tira iyada maaragtay adeega noo keentay aad iyo aad ugu mahadsantahay boqol nolosha kale waa taalaa caanihii cadkii wax la arka halkan maaragtay waad ka helaysaa marka mar labaad mar saddexaad dadka maaragtay halkan danaynaya hadda waa ana idinka hubi waa la huwa meeshaan meelaad ku hungoobaysiin maahin bal imaada ee maaragtay waxa bedeshta oo mar soo siyaarta deegaankani dhammaan waa ay u dhammaystiran yihiin nolosha asaasiyaadkeeda sida ceelashii iyo isgaarsiintii intaba waad helaysaa halkan haddii aad joogto baahi weyn uma qabtid magaalooyinka hoostaga amba magaalada muqdisho haddaba deegaankani boqolkiiba boqol waa deegaan u fiican jiilka cusub ee hadda soo korayo ilmaha caruurta dadka waaweyn intaba qof walboo noola oo bini aadan ah waxaa u fiican deegaanka dabiiciga ah aan noloshiisa doorsoomin Manchester TV